السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولكن محمد خالد waxaan barnaamijka kan soo wadnay barnaamij aan kaga hadlayno caqabadaha haysta dhalinyarada Soomaaliyeed dhinacyada waxbarashada iyo suuqa shaqada. waxaan ka soo hadalnay muhiimadda ay leedahay in nidaamkeena waxbarasho aan saxno. sidoo kale in dhalinyarada Soomaaliyeed oo wacyigoodu uu kor u qaadnaado. waxaan ognahay maanta nidaamkeena waxbarasho runtii wax badan ayaa naga khaldan. waxaan maraynaa heer waxbarashadii ay naga soo harto ardayga in loo akhriyo oo kali ah slides. haddii ardayga slide-ka loo akhriyo ama sabuurada wax loogu qoro uusan weligiis wax skill ama wax xirfad leh uusan lahayn mushkil weyn ayay imaanaysaa. saawad ogsoonahay aqoontu waxa ugu muhiimsan saddex qaybood. qaybta ugu muhiimsan waa qaybta knowledge-ka iyo qaybta skills-ka iyo qaybta attitude-ka. qof saddexdoona way iska bayaan. haddii uusan qofka uusan aqoon lahayn knowledge uusan filliga uusan u lahayn waa mushkil weyn. sidoo kale haddii uusan qofka dhalinyarta uusan lahayn xirfad aqoontiisa kabaysa iyadana aqoonti kaligeed waxba ma tarayso. sidoo kale qofka dhalinyarta uusan akhlaaqiyad uusan lahayn sidoo kale aqoontiisii iyo xirfadiisiina waxba ma tarayso. dhammaan skills-kaas waxay muhiim u yihiin suuqa shaqada qofka dhalinyarta ah in uu soo galo. sidaas darteed mushkiladda marka waxaan ka soo sheekeynay in laba meelood ay ugu muhiimsan tahay meelaha ka imaanayaan. mushkiladda koowaad waa nidaamkeena waxbarasho. nidaamkeena waxbarasho waxa uu ku soo aruuray sida aan sheegay in ardayga slides loo akhriyo. marka waxaan leeyahay slide reader will produce another slide reader. haddii aad slide reader aad tahay ama xaruntaada kaliya ardayga slides loo akhriyo ama maalin booqasho xarun caafimaad u tagaan ama maalin microscope indhaha loo saaro arintaas aqoon ma aha. ardayga noocaasna runtii sidii la rabay waxba uma aadan barin. mushkiladda labaad xagee bay nooga imaanaysaa. mushkiladda labaad waa dhalinyarta Soomaaliyeed haddii hankooda iyo wacyigooda aad u hooseeyo aysan isku cabiraan burburka iyo dhibaatada dalkeena ka jirta mentality-gooda ay ku cabiraan aysan ku cabirin teknolojiyadda iyo horumarka maanta adduunka looga baahan yahay iska daa adduunka inaan wax la qaybsanee wadankeena xitaa waxba uma qaban karno hoos baana u dhacaynaa. haddaba waxa muhiim ah in wacyigeena uu kor u qaadnaado qofka ardaygana uu garanayo xarunta waxbarashada wax ka baranayo uu ka dalbado. they have to demand waa in ay ka codsadaan ama ku amraan ama ka dalbadaan in waxa ay xuquuqda u leeyihiin ay xaruntaas ay ka helaan. dhawaan magaalada Boosaaso marka mushkiladda noocaas anigu aan arkay waxaan israadinayo xirfadaha aad leedahay waa ku dhaantaa dad badan maxaad ardada aad ugu faa'iideen weyday. waxaan arkay in nidaamkeena curriculum-yada wadankeena ka jira qaarkood gudaha marka loo sii galo wax badan ay ka khaldan yihiin. waxaan u fiirsaday example kulliyadda tusaale haddaan u soo qaato economic hadaa baranaysid xirfadda ugu muhiimsan ee la rabo inaad baratid waa programka starter oo dadka econometricska ama economicianska ay ku shaqeeyaan. haddaba haddii aadan garanayn ama macalinka wax ku dhigayba uusan garanayn seebaad economics baan ku soo qalin jibiyay aad ugu dhihi kartaa oo aad suuqa shaqada u soo gali kartaa ama xarun yahay ama mu'assasad jaamacadeed seebaa arday noocaas suuqa shaqada ugu soo siideyn kartaan. mas'uuliyad weyn ayaa ardada naga saaran. haddaan tusaale labaad u soo qaato suuqa shaqada xirfadaha kale ee dhinaca hay'adaha lagaga shaqeeyo. haddii uusan ardayga public health-ga ama health waxyaalaha la xiriira baranaya uusan garanayn xirfadaha muhiimka ah runtii isagana waa ku adkaanaysaa suuqa shaqada sidii u soo gali lahaa. waxaan u fiirsaday kulliyadaha sida nutrition-ka oo kale ardayga waxa loo dhigaa qaybaha carbohydrates, proteins, lipids, fats. Yes, they are important. laakiin marka ay timaado xirfad ahaan hadaa ardayga inta kaliya soo bartay suuqa shaqada ardaygaasi wax ay ka anfacaysa ma leh. hay'adaha ama xirfadaha muhiimka ah suuqa shaqada waxa kamid ah inuu ardaygu yaqaan inuu soo saari karo severe acute malnutrition ilmaha ah oo xisaab ku soo saari karo. sidoo kale global acute malnutrition, moderate acute malnutrition, IWSF indicatorski dhammaan inuu cabiri karo. haddaba haddii aadan applicationska loogu talagalay sida ina application oo loo isticmaalo anthropometric surveys ka loo isticmaalo sida smart survey oo kale ardayga aadan barin manhajka uu ugu jiro nutrition-ka ardaygaas aad soo saaraysid runtii fashil buu noqonayaa. suuqa shaqadana kuma haboona. saas darteed waxa muhiim ah in hadeer aan dib curriculum-yadeena oo dhan aan review aan ku sameeyno si markaas ardaygeena uu noqdo mid suuqa shaqada ku haboon. sidoo kale maadooyinka la xiriira food sida food safety, food hygiene xirfadaha noocaas waa muhiim balse suuqa
suuqa waxa aad u sii muhiimsan oo hot topic ah waa food security-ga haddii ardayga curriculum-ka uusan ugu jirin food security-ga indicators-ka sida household dietary diversity score sida loo xisaabiyo household hunger scale-kii food consumption score-kii reduce carbon strategy index-kii waxyaalahaas oo ardayga haddii san curriculum-ka uusan ugu jirin runtii suuqa shaqada isagana ma la qabsan karo sidoo kale monitoring and evaluation oo muhiim ah qaybaha research-ka inay hoos timaado ay ku dhex jirto haddii ardaygeena aanan loo dhigin oo xirfad ahaan uusan samayn karin log frame-kii meal plan-kii M&E plan-kii theory of change-gii waxyaalahaas uusan samayn karin isagana ardaygaas wuu fashilmaya hadduusan garanayn sida baseline evaluations endline evaluations waxa loo sameeyo isagana ardaygaas wuu fashilmaya suuqa shaqadana waxba kama soo helayo waa inaan marka dib iskugu laabanno waan isweydiino xagee u soconnaa nidaamkeena waxbarasho runtii xagee buu noo wadaa dad noocaas haddii aan soo saarno nidaamkeena waxbarasho fashil weeyaan dhowaan magaalada Boosaaso waxaan ka hirgeliyay xarun loo yaqaan Yamais Academy Skills and Innovation oo hadafka laga leeyahay uu yahay in dhalinyartu ay bartaan xirfadaha muhiimka ah ee suuqa shaqada ka anfacaysa waxaan dhammaan dib u habeyn ku sameynay curriculum-kii lagaga shaqeynayay waxaan dhammaan maadooyinka sida nutrition-ka research-ka statistics-ka food security-ga dhammaan aan ku salaynay xirfadaha muhiimka oo ah suuqa shaqada qaybtan hadaba Yamais waxaan ugu talagalnay kaliya uguma talagalin ardayda macadka balse waxaan ugu talagalnay dhammaan ardayda kale ee jaamacadaha magaalada Boosaaso iyo macaahidda kala duwan dhigata iyo qof kasta oo xirfad ahaan raba inuu xirfadaha muhiimka oo suuqa shaqada inuu develop gareeyo in uu xirfadahan ka faa'iideysto waxaan soo qalabaynay maktabadii ayaan soo dhignay sidoo kale kombiyuutarada muhiimka ah software-da lagu shaqeynay ayaan soo dhignay training hall-ki ayaan sameynay waxaasna waxa ugu talagalnay in nidaamkeen waxbarashada ugu yaraan magaalada Boosaaso aan challenge gareyno sidoo kale jaamacadaha wadanka iyagana aan fariin u dirno aan leenahay please nidaamkeen waxbarasho mas'uuliyad ayaa ardayda naga saaran waa in total transformation aan ku sameyno iska daa in aan la xisaabtano wax la qaybsano umada caalamka oo shaqooyin international dhalinyarteen oo xareyso balse wadankii gudihiisii ayay marti wax uga noqonayaan dad ajnabi ah waxaan noo baranaa dhammaanteen oo horumar gaarnay iyo dhammaanteen oo ka wada shaqeynay si aan nolol farxad barwaaqo xirfad amni aan u wada gaari lahayn nagu soo booqo xarunta Yamais ee magaalada Boosaaso aan ka hirgelinay aaga shirkadda Gulis wadada laamiga weyn hormarta nagu soo dhawow oo fiiri dhammaan applicationska iyo xirfadaha aan keenay waxaan hubaa wax badan inaad ka faa'iideysan doontid haddii videogan ku soo gaaro waxaan ka codsanayaa inaad subscribe gareysid like gareysid share gareysid aad la wadaagtid dhammaan qof kasta oo dhalinyaro ah si ugu yaraan haddii uusan xitaa Boosaaso nala joogin ama Soomaaliya qaybaheeda kale uu joogo uu ugu tago ama uu la kaashado qof yaqaana xirfadaha aan ku sheegayo uga faa'iideysta wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh